dawladnimadu macnaheedu waxa ay tahay inaad og tahay waxa aad rabto meesha aad u socoto sida aad ku tagi lahayd daacad ay ka tahay aad u soo kacdo waqti aad geliso waxaan rabaa marka dhalinyaro dalkan hadda aan joogno xoogga uu haysto waa idinka maskaxda uu haysto waa idinka dhaqaalaha uu haysto waa idinka waxa uu ku faanayo ama cidda uu la tartamayo oo raba adduunyada inuu la tartamo waa idinka idinkuna waxa laga yaabaa wali dhaqankiinu inuu ku mashquulsan yahay maanta Facebook maxaa lagu soo qoray siyaasi hebel muxuu yiri qabiil hebel ku duulay qarnigii 21aad ayaa lagu jiraa qarnigii waxa lagu jiraa aadan noolaan karin haddii aadan aqoon lahayn aad u baahan tahay si aad u noolaato inaad xirfad leedahay si aqoonta dadka Soomaaliyeed loo dhiso aan ula tartanno bulshada adduunka waa inaan leenahay iskuulo iyo jaamacado soo saara dad Soomaaliyeed oo aan ahayn iskuulo iyo jaamacado laga soo baxo laakiin kuwa ka soo baxa ay la cilmi yihiin ama ka cilmi badan yihiin kuwa Kenya ama Jarmalka ama Faransiiska ka soo baxa macnaheedu waxay tahay inaan wadankeena ka shaqeyno si aan uga shaqeyno marka waa inaan wadanka dhaqaalihiisa wax ka qabanaa oo musuqmaasuqa la dagaalnaa oo kobcinaa dhaqaalaha oo adduunyada ilaheeda dhaqaaluhu ay dib noo aaminaan si dibna loo kugu aamino waa inaan xanuun marnaa xanuunka cidda maraysa oo adkaysanaysa waa cidda rabta inay mustaqbal yeelato cidda mustaqbalka lehna waa idinka waa idin mahad celinayaa inaad aaminteen inaad dalkiina leedihiin waa idinku dhaliilayaa weli inaanay muuqan shaqo dhab ah oo iga dhaadhicisa inaad aqbasheen inaad qabsatiin hoggaanka dalkiina weli waxaad u dhaqmaysaan qof gurigooda jooga oo marti ka ah weli waxaad u dhaqmaysaan inaad xaaladda mustaqbalka dhexdhexaad ka tihiin haddii aad u dhaqmayso inaad mustaqbalka dalka iyo dadka Soomaaliyeed iyo carruurtaada dhexdhexaad ka tahay macnaheedu waxay tahay weli baadan fahmin wixii aan ka hadalnay sanadkii hore marka haddaad rabtaan sanadka dambe haddii Ilaahay yiraahdo inaad soo casuumtaan waa inaad igu soo casuumtaan wax ka weyn ra'iisul wasaare oo sanadkii hore hadalkaada waa maqalnay inaan anagu milkiilayaasha nahay caddeyn baan rabaa inaad tustaan sanadka soo socda haddii ay sidaas tahay marka waxaa muhiim ah inaan isla garanno waxyaabo yaryar oo kala duwan kow haddii aan rabno inaan wax ka bedelno dalka xaaladda uu ku sugan yahay waxaan u baahannahay inaan wax ka bedelno xaaladda ay dadku ku sugan yihiin soo islama garan intaas si xaaladda dadku ay ku sugan yihiin aan wax uga bedelno waa inaan isla fahamnaa xaaladda dadku ay ku sugan yihiin sida ay tahay si aan isula fahamno waa inaan fahamnaa ama aan ka fikirnaa sababta keentay dadku inay galaan xaaladda ay ku sugan yihiin waxaad u baahan tihiin markaa fadhidaan jaamacadaha markaad doodaysaan inaad ka fikirtaan maxaan ku mutaysanay haddii aan nahay ummadda Soomaaliyeed inaan ku jirno xaaladda hadda aan ku jirno dhaqanka hadda aan leenahay oo aan u fahamsannahay dawladnimada sida uu naga noqday xaalad noocee ah ayaa na soo gelisay marka waxaan rabnaa inaan ogaano dal waliba ummad waliba waxay yeelataa qaab dhaqameed ay ku noolaato dawladnimadeedana ay ku horumarayso haddii qaab dhaqameedkaas dawladnimada lagu dhisaayo marka qaab fikirkaasi uu naga noqdo qaab fikir khaldan waxaa dhibaato noqonaysa inaan gaarno meesha aan rabno inaan gaarno su'aalo adag inaan isweydiino waayo marka
سؤال أدق هنا نسويدينه أو أي تهاي maxaa keenay dalka nagu dhagano Kenya inuu taagan yahay meeshii uu taagan yahay maxaa keenay shalayto in madaxweynaheena loogu yeeray dalka Djibouti asaga iyo dhammaan madaxweynayaasha geeska Afrika oo dalka walaalaheena oo sharafta leh Djibouti ay soo bandhigeen inay billions of dollars ay geliyeen wax la yiraahdo free zone oo ay rabeen inay tusaan madaxweynayaasha Afrika oo Paul Kagame ugu horeeyay madaxweynaheena uu ku jiray madaxweynaha Suudaan uu ku jiray wasaaraha Itoobiya ku jiray maxaa keenay in dalalka deriskeena ay cilmi dhoofinayaan ma aha badeeco inay dadkooda intay wax baraan ay dunida u dhoofinayaan maxaa keena arday walba ay soo saaraan inuu kuweena ka quality badan yahay shaqaalaha ay haystaan inay kuweena dhaamaan dhaqaalahoodu ay ku kunjibaarmaan ama ku balaayin jibaarmaan iyadoo xoolaha ay haystaan annaga kuwa aan haysan ay ka yar yihiin maxaa keenay in qof walba dawladaha dariska markuu diyaarad raaco oo dunida tagaayo loola dhaqmo si idinka duwan oo idinka sida leeyna dhaqmo annaga sida noola dhaqmo ay ka duwan tahay kuwa kale maxaa keenay in dhalinyaradeenu ay doomaha raacaan ay badda ku dhacaan ama aan ka soo daldalno jeelash in laga soo celiyo kuwooduna aanay meel aadin intooda badan ay joogaan su'aalaha la rabo in la isweydiiyo xaaladda aan idin sheegayo oo aad rabtaan inaad isweydiisaan haddaad rabtaan kuwii mustaqbalka dalkan xukumi lahaa inaad isweydiisaan ويمو dalka gudihiisa maxaa keenay inaan dhexdhexaad ka nahay mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed maxaa keenay in inteena badan aan qof caadi ah noqono qof caadi ma noqon kartin qof caadi ah waxa noqon kara qof dalkiisa hore u maray qof caadi ah waxay tahay qof subaxii soo kaca soo shaqaysta seexda yaad ku haleynaysaa dalka intiisa kale hadaad qof caadi ah noqoto maxaa keenay inaan aqbalno inaan fiirsano in caruurteena ama hooyooyinkeena ama aabaheen jidadka markii lagu laayo kaliya aan iraado caawa qof baa lagu dilay wadada Makka al-Mukarrama ama Kaaraan qof ma aha hooyo Soomaaliyeed oo 4 caruur ah ayaa la dilay wiil jaamacad ka soo baxay oo 20 ama 30 ama 40 sano haduu noolaa lahay dalkan dhisi lahaa ayaa la dilay saamiyihii Soomaaliya ugu horeyn lahaa cirka tagi lahaa ayaa la dilay dhakhtarkii mustaqbalka Soomaaliya ugu wanaagsanaan lahaa ayaa la dilay maxaan sidaas u dhihi weyn maxaan u aqbalnaa markaan u jeedno dawladnimadeena oo dariiq sax ah ku socoto qolayar inay ka leexinayso maxaan u aqbalnaa idinku inaad tihiin qoladii loo isticmaali lahaa inay leexiso idinku intaad ahaan lahaydeen milkiilayaashii qaranka maalinba waxa la idin keenaa shay laga hadlo shaygaasaad wax ku darsataan waxaad qayb ka noqoteen dhaqanka fadhi ku dirirka oo aan ahayn dhaqanka shaqeeya waxaad qayb ka tihiin dhaqankii la soo dhaafay oo la rabo in la bedelo dawladnimadu waxay tahay waxaanad soo bandhigteen inaad ka dhabaysaan dawladnimadu waxay tahay su'aalaha adagoon isweydiinayno inaad ka jawaabtaan dawladnimadu waxay tahay gudoomiye ku-xigeenku sida uu sheegay waxaan la dhisay idinka la idin dhisay aniga iyo isaga iyo Qadiijo waan ka soconnaa haddii lagu ciyaarayo idinka la idinkaga ciyaaraya hadday hagaagaan idinkay idin hagaagayaan hadafka dawladnimada marka haddii aad ka shaqaynaysaan waa la idin tilmaamayo waa fudud yahay
كو وعايتهاي إن عدة ملكيلياش الدلك كأه عدكو ذا تلدو ذا أي نقطة ميد لغو خصبينها إلا دقيستو سيلو دقيستو وإن ملكيلياش أي فهمان مرك هورا إنay milkiilayaal yihiin markay fahmaan kadibna sida ay lahaanshaha uga dhabayn lahaayeen inay fahmaan macnaheedu waxay tahay waa inaad u abaabulantihiin si qarannimo ah waa inaad u abaabulantihiin si mustaqbalka ku salaysan waa inaad u abaabulantihiin si aad madaxweyne farmaajo u dhihi kartaan dariiqa dalka aad ku hogaaminayso waa khalada bidix u leexi waa inaad abaabulantihiin qaab aad wasiirada dawladda ku jira aad ula xisaabtami kartaan si halkaas la soo gaaro marka waxaan idinku caawinaynaa inaan wadankan u bedelno in qabiilka looga guuro asxaab siyaasadeed in xisbiye la sameeyo in sharci doorasho la sameeyo oo codka idinku aad dhiibataan وأنا كشقينا إن أنا ودي جعنت حوجا يري كويس تيجين كل يدين سؤالي لكن وحنون وجادا هو هذا الثلاثة جعنت كويس تمية الأيام إذن كيدا إذن سيان يا أم الله إنسان إن معنى درل إذن كو كيناي مايا وأنا أريد كعدان وأدول النبي سوا بابشان محو إذن كجد أنت يلا قلنا حريسته wiilka dhalinyarada ay degmada Wardhigle u qiiminayay dadka masaakiinta Afrika hadii aadan qiimeynaynin noloshiina maxaa dhalinyaro ka tihiin hadii wiilasha dhalinyarada Soomaaliyeed oo maalinba la dilaayo iyagoo dawladnimo u adeegaya aad ka soo qaadaan qof dhintay aadan u la xisaabtamaynin haliyay idinka baxay sidee baad rabtaan inaad dalka idinku gacanta ugu dhigtaan وان قبيلك لغو بدلا أصحاب سياسة وان عضدك أي بحيان شعبك صوماليات أردن وان دالك أردن لغا عضيا وان دولة أي حقنت شعبك صوماليات لكينا وان مدحدا مستقبلك أي كوي مادان مستقبلك رابطان كشعبك صوماليات وان إذنك أود آيالتان سياد أيالتان انت لغا شقين آي شقوين كاس وجيد كيدا لغو جرو وان أرددك توصان الدنيا ذو وحي نولا دقنتا سيده هره سي كدول مeel walbo aan tagno waana la ciseeyaa waxaana loo ciseeyaa inaan ahayn dawlad wax loo yeeriyo nalooma sheego go'aanka ummadda Soomaaliyeed aan u gaarayna annaga go'aansana go'aankaan ummadda Soomaaliyeed u gaarayna isgoyska aan marayno marka waxaan rabaa dhalinyaro inaan caawa mar kale idinku soo celiyo ما لقى شقين كره هدي إنديه نحريهن ما لقى شقين كره هداتين ويلل إيه قبضة عادية ما لقى شقين كره هدياتين ويلل إيه قبضة دحات كه مستقبل كومة الصومالية ما لقى شقين كره هداتين كوا ولا دنجارة لأي فيسبوك كهتان ما لقى شقين كره هديات ليدهين أركتي كوبان وهذا الله هينين أركتي فوق ما لقى شقين كره هدادا فهمننا صدن سنة نقفلا إناني قبيالة دي واحتري ما لقى شقين كره هدي آدن إذن كنا قننا هلية مستقبلكم مدرسة وعن ربا إنا إذن كوكالمي وحول بؤان أودو si aad ugu noolaataan nolol ka wanaagsan tii annagu aan ku noolayn si aad uga badbaadaan qaxi annagu aan galnay si aad uga badbaadaan dunida annaga nala ku soo liiday si aad uga badbaadaan qaxootinimada si aad uga badbaadaan qabiilka iyo qabyaaladda si aad uga badbaadaan Soomaaliya laga cararaayo oo u hogaamisaan Soomaaliya loo soo cararaayo si aan idin kugu caawino marka waxaan idin leenahay kala qaada indhaha Ilaahayna idin garab